war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh maxamuud karooni waa ka raystay miyuu mar kale yiri ilmihi eritrea miyuu ka waramay qof walba oo tabasho qaba waa la kulmaa ma yiri dadka abaaruhu haayeen ha loo gargaaro miyuu ku celiyay war dadka tareenku ma buuxsamayay hasdajiyeen miyuu yiri Soomaali oo helis adduunyada helis oo mar kale ka nagay waraw wiil la gumadeeyo waxba la lisaya laguma dhin waraa dhahay warka waa ku soo diri jirteen madaxweynuhu safarkiisii labaad dibadda ugu baxo ayuu maanta Turkiga ku aaday war maalin dhaweyd markii madaxweynuhu Imaaraadka aaday dad badan baa been soo galiyay beledka waxayna sheegeen Israa'iil oo aanan weligeed xiriir yeelan inuu aaday marka hadda ma waxay dhihi doonaan madaxweynuhu markuu Turkiga aaday isla markii Kuuriyada waqooyi u dhuntay war Kuuriyada waqooyi madaxweynaha jaagad hirina Jom King Jong Kam kala la erjari yahub ku adridaas yarayna erdoone war madaxweynaha Kuuriyada waqooyi adduunka isla xiriirtaba waa waayay marka hadii madaxweynaha uu tagi lahaa hububa soo siin lahaa buriya biyaha loo kala baxay war Israa'iil carab oo dhama xiriir la yeelatay Soomaalida maxaa ku gaar ah xiriir been loogu xamanaya war Soomaaliya Israa'iil isma arkine waligeemba waxaan difaacnaa qadiyad aan shaqo ku lahayn waa loo dhan yahay maanta ra'iisul wasaaruhu wuxuu magacaabay goli wasiirada miyuu magacaabay war rabla waqtigiisa waa dhamaaday war taliyaashii ciidanka miyuu magacaabay war waxba ma kala ogide taliya ima qusaysto iyo taliya shub ma joogaane taliya ana amray iyo taliya sheegna ka nixin war ninkii qayrkii loo xireeyo soo qoysa adiguna miyaadan maqal horta safiir ma la magacaabay ilaa hadda war bilaashan isdaaliyaasana gudoomiyaha beledku umurfinayso war waxba ma kala ogide madaxweynuhu safiiradii hore u update gareey war baasaboorka diblomaasiga CBB yaa u qaybiyay dawladda ku naas nuujisay miyaadan maqli jirin darandooriya naasi dabadeed ma dheegi jirne war wala weynay carruurtii idin soo hilowdayna hadaad baasaboorradii service-ka kala laabateen jamidnimo ma rabtaan adeer hana wareerinina warka boosow service shaqaala la siiyay ilmaha aad sheegaysaa ma in dadka cayaan ba shaqaale ku ahaay warka boosow ilmo intaad hilito wali baa jirtay shaah bulug bay abende habsigaanu lunta ku siinay marka haan wali baa rajareena ma alinkeenu diid wuxuuna yiri maya ma ogoline maya oo marnaba yeelimeeyne maalinkiinu ku tabihe hadaya ku garanaya wargooyin warkii waad naga waasheene waxa daldalaysan idinma sheegin anigu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Armaanta la taliyaal buu magacaabay wah inta taliyaga bil magacaabna la taliyaga la magacaabay war kaliya talis dad lagu aadayaan maqli jiray la taliyaal ninkii magacaabay waa dadaalay war kala maanay war ma haysiine degmada howlwadaag waa maxay maleeshiyada qabsato la sheegayo ma inqilaab ka dhacay horta wali maleeshiya lagama gudbin miya war xagee looga gudbaya maleeshiya Soomaaliya oo dhan bay caqabad ku yihiin war xildhibaanada baarlamaanka waxa u daaran biriiciid waa iideyna waana la fasaxay waraw wiil lagu madaxana furan miyay dhahan war bashaar wadani oo inta dadka gubayso xagaad wadaninimo ku arkaysa war dhageystayaasha kalamaan waxay dhaheen ninkan dadka gubaya ha duceeyo war dagooyin idinkan garanayne la gubtu la jinnay bay ka dhigan tahay waayahay gooyina maxay ka dhigan tahay war wala dhanba habaaru uni masla garuugnin ku duuba fade waynaan dareemine dadka kii gubow daran miyay mari hadda war miyay cagaashow laga gubin waaga waraw wiil la gub kuwa baahi laga gubay baa joogo war ma haysiina waxa leeyahay dalka Nigeria hadda koor wasiirka maaliyadda baarlamaanka su'aalo ku badiyeen kadibna istaago iska tuuray baa leeyahay oga ma yiree aga war fursada wasiir Bayley dhaaftay warkaasu Baylaha Nigeria inuu hayso ma dhici karto war beenbeendaas Bayley may ku wala fadna kiisisku wala weeyay ya arfadeen wargooyin Baylaha markay baarlamaanka wareeriyeen intuu madaxa salaaxay buu yiri taas waa sheeko kale war ma haysaana dawladda Puntland baarlamaankeedu wuxuu u yeeray wasiirkii dekedaha waxayna wax badan ka weydiiyeen xaaladda dekeda Boosaaso iyo heshiiska DP World qarashkii meelo maray la waayay miyay dhaheen Puntland waa dawlad accountability baana ka jira horta baarlamaanka Puntland doorashadii Soomaaliya wixii ka dambeeyay accountability iyo fagfagaysan hore u qabi jirin bay bilaabeen maxaa soo kordhay ana lanki muraad ay deeru ay marmarsi kale weydiye waran koolow hadii baarlamaankii galmudug furiyo xarunta laga qaatay kan Puntland oo madaxdooda la xisaabtamaya maxaad ku haysataa war waxa leeyri siyaasigii bukaday ee doctor baari jiray aaday beentana u qoray wuxuu rabaa inuu bogsoodaay balse uu san garanay dib ku sii badsanaya war Ahmed Deero kolka galmudug waliba ka dheegi jiray xildoonkii iyo naagadoonka waxa ka dhaheeya beenta